maxkamadda gobol degmo Saraar ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday natiijada rasmiga ah ee xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada Caynaba ee ku guuleystay doorashadii dhacday 31 bishiina soo dhaaftay ee May. Go'aankan ayaa waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobol degmo Saraar waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Saraar, taliska qaybta booliska, xeeralyaha gobol, xubno ka socday komishanka degmada Caynaba iyo waliba xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada Caynaba ee natiijadooda rasmiga ah maanta maxkamaddu ku dhawaaqday. Waana kan gudoomiye Xasan Saalax oo natiijadaasi ku dhawaaqaya. maxkamadda gobol degmo Saraar Caynaba markay aragtay inaanay jirin wax cabasho ah oo ka timi musharaxiinta golaha deegaanka markay hubisay natiijada hordhaca ah ee ay soo saareen komishanka doorashooyinka degmada Caynaba markay aragtay qodobada 110 112 ee dastuurka Soomaaliland iyo qodobada 22 23 24 25 ee xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer lambar 23 isbaaro 2019 iyo qodobka 153 ee xeerka guud ee doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 19 isbaaro 2020 iyo qodobada 77 79 80 xeerka habka madaniga markay aragtay dhammaan sababta kor ku xusan oo dhan waxay soo saartay go'aankan Jamhuuriyadda Soomaaliland magaca ummadda Soomaaliland maxkamadda gobol degmo Saraar Caynaba go'aankii maxkamadda gobol degmo Saraar Caynaba number 1 waxay ansixisay maanta oo taariikhdu tahay 15 bisha 6 2022 go'aanka natiijada hordhaca ee doorashooyinka golaha deegaanka degmada Caynaba ee ay soo saareen komishanka doorashooyinka degmada Caynaba ee ku taariikhaysan 3 Juun 2022 laba waxay go'aamisay in doorashada golaha deegaanka ay ku guuleysteen mudanayaasha kala ah xisbiga Ucud Maxamed Haybe Maxamuud Jaamac, Salabaan Aw Faarax Dirir Jaamac, Mursal Axmed Maxamed Cawad xisbiga Kulmiye, Xasan Yuusuf Aadan Samatar, Yaasiin Jaamac Cawad Cali, Maxamed Axmed Faarax Diriye, Cabdullaahi Colaad Yuusuf xisbiga Wadani, Cabdixaafid Ibraahim Abakar, Aadan Dubad Jaamac. saddex waxaa go'aankan loo cuskaday qodobada 110 ee dastuurka Soomaaliland iyo qodobada 22 23 24 25 xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer lambar 23 isbaaro 2019 iyo qodobka 153 ee xeerka guud ee doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 19 isbaaro 2020 iyo qodobada 77 xeerka habka madaniga. afar waxaa go'aankan lagu dhawaaqay maanta taariikhdu tahay 15 bisha 6 2022 Allah mahadle. markii go'aankani lagu dhawaaqay ayaa gudoomiyaha gobolka Saraar Mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed waxa uu la dardaarmay xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada Caynaba isagoo u rajeeyay inay noqon doonaan kuwa ka shaqeeya horumarka bulshada gobolka Saraar. waxaana sidoo kale uu sheegay in maalinta birita ay golaha deegaanka degmada Caynaba yeelan doono kalfadhigii ugu horeeyay ee ku dooran doonaan maayirka iyo ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Caynaba. runtii aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaya gudoomiyaha maxkamadda gobol degmo Saraar. run ahaantii waa sunnihii dowladnimada oo runtii iyo dastuurku wuxuu waajibo la marayo. kulli waxay noo hadhay haddii Ilaahay ka dhigo birito oo 16 bisha dhaartii iyo runtii doorashadii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada oo aynu birito iyadana xafiiska gobolka lagu qaban doono. kulli xildhibaanada soo baxay dardaaranka ugu weyn waxaanu siin doonaa birito haddii Ilaahay ka dhigo. laakiin maanta waxay noo tahay inaynu kulankan ka soo qayb galaan kelmadun ka ilaahdo oo aan gudoomiyaha maxkamadda u mahad celiyo xildhibaanada soo baxayna aan u mahad celiyo runtii dadweynaha faraha badan leh ee ka soo qayb galan aan runtii iyagana u mahad celiyo. intaas oo maanta laga bilaabana waxa tiidee xildhibaano u soo baxay gobolka iyo degmada runtii Caynaba matali doonana runtii dhammaan gobolka oo dhan iyo degmooyinkiisana Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inay noqotaan xisbi kasta ka soo baxa xildhibaano u adeega danta bulshada. Jaamac Boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.